السلام عليكم سو dhawaad maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno habka ugu fudud ee uur lagu qaadi karo. Runtii dadka qaar way u fududahay inay uur qaadaan si dhaqso leh halka dadka qaarna ay ku qaadanayso waqtiyo badan inay uur qaadaan. Haddaba waxaan kula wadaagi doonaa waxyaabo kaa caawinayo inaad si dhaqso leh uur ku qaadid. Lambarka koowaad waxay tahay waa inaad ogaataa caadadaada ama cycle-kaaga waqtiga uu ku imaado. gabdha runtii qaar waxay u imaataa 28 maalmood kadib, gabdha qaar 30 maalin kadib, gabarba caadada si u imaataa. haddaba haddii aad inaad ogaatid waqtiga caadada uu ku imaado, waxaad soo qaadataa qalin iyo buug, soo waxaa xisaabaysaa maalinta koowaad ee caadada ku imaato ilaa ay laga gaarayo maalinta kale caadada ku imaanayso inta u dhaxayso waa inaad xisaabsataa. haddii ay kuu soo baxay 28 maalmood, waxaa samaysaa 14 maalin ka jar, soo waxaa kuu soo baxay 14, soo 14kaas waa maalinta ugu fiican ama xilliga ugu wanaagsan uur qaadi kartid iyo labada maalin ka dambayso 15 iyo 16. okay, saddexdaas maalin waxaa la yiraahdaa waa golds, waa waqti aad u wanaagsan ee aad u muhiim tahay inaad qaadi uur. haddii sidoo kale 30 maalin kadib uu ku imaado 14 ka jar 16 ku soo baxay, soo 16 17 18 saddexdaas maalin waa saddex maalin ee ugu fiican oo uur qaadi kartid. haddaba maxay tahay sababta u fiican yihiin? sababtu waxay tahay xilliyadaas waxaa la soo dayaa ugxaan waxay imaataa meel la yiraahdo fallopian tube-ka. fallopian tube-kaas markay imaato waxay sugtaa isbeermaha inuu imaado meeshaas. haddii marka isbeermaha uu imaado meesha, waxaa dhacay inay falgalaan fertilization meesha bacrimin ay ka dhacdo, ilmo ay ka imaadaan. laakiin haddii isbeermaha meesha uu imaan waayo, maxaa dhacayo? haddii isbeermaha meesha imaan waayo, waxaa dhacayso in 48 saac kadib meeshii ugxaanta ay dhimato. meesha wuxuu isku bedeli doonaa marka gabadha caadada ayaa u imaan doono, caadadeedii ayaa imaan doono. soo marka waa inaad ka faa'iidaystaa marka xilliyadaas aan kuu sheegay adigoo xisaabsanayo waqtiga ay caadada ku imaato ama maalmaha caadada ay ku imaato adoo ka jarayo 14 maalin. sidoo kale waxaa jira marka waxyaabo aad isku arki kartid xilliyadaas ee hadda isku aragtid ay tahay xilliyo muhiim ah uur qaadi kartid galmadana aad badisiin. maxay tahay waxyaabo qaar aad isku arkaysid xilliyadaas? waxaa isku arki doontaa heerkulkaaga uu isbedelay, jirkaaga waxaa arki doontaa inuu noqonayo mid kuleele ama kuleelkaaga uu badanayo, sidoo kale tabardari aad dareemaysid, aad u baahan tahay sidoo kale in maxaa la yiraahdaa xaajigaaga aad galma samaysin, rabitaankaaga uu aad u badan yahay, waxyaabo qaarna xagga hoose iskaga arkaysid. soo haddaa intaas isku aragtidna runtii waxay muhiim u tahay in ay tahay xilliyada ugu muhiimsan aad ka faa'iidaysan. sidoo kale waxaa jira waxyaabo aad iska ilaalinaysid xilliyadaas inta badan oo ayadana research qaar ay la sameeyay lagu ogaaday. waxaa ka mid ah kafeega. okay, kafeega runtii badan ama kafeega xad dhaafka ah runtii asiga wuxuu dhibaato ku yahay maxaa la yiraahdaa wax la yiraahdo in uur qaadi. soo marka waxaa fiican inaad iska ilaalisid kafeega badan, soo wuxuu kaa caawinaa marka in aad uur qaadid si dhaqso. lambarka labaad oo asina muhiim noo ah waxay tahay in maxaa la yiraahdaa aad basatid cuntooyinkan nafaqada leh. okay, sida qudaarta badan, maxaa la yiraahdaa kelida, beerka, waxyaabahaas oo kale inaad basatid si jirkaaga uu aad u wanaagsanaado. markastuu caafimaadkaaga wanaagsanaado waa markastuu jaaniska uurka aad qaadi kartid uu bataa. waa taas inaad ogaataa qaacidadaas. okay, soo iska ilaali waxyaabaha dufinta leh, iska ilaali waxyaabaha saliidda leh, dhibaato ku keeni karo, iska yareey. okay, soo marka maxaa cunay waxyaabaha qudaarta ay ku badan yihiin. ay shay oo qudaar cagaaran ah waa inaad soo qaadataa aad cuntaa. waa inaad lahaataa waxa la yiraahdo diet balance. okay, nafaqadaada waa inay kuu dheelitirnaataa. subaxdii waxyaabaha cunaysid waa inay ku xisaabsanaadaan, duhurtii, galabtii, qadadaada, cashadaada, cuntooyinka cunaysid waa inay ahaadaan cuntooyin nafaqo leh, jirkaagan wax kusoo kordhi karo. qodobka saddexaad waa inaad ku nagaataa sariirta galmada kadib. okay, runtii waa muhiim, very important ah, sababtoo ah waxay kaa caawinaya inaad uur qaadid. haddii aad istaagtid isla markaa galma samaysin xaajigaaga maqshisha aadid, waxaa dhacay inay biyihii soo laabtaan, jaaniska uurka lagu qaadi lahaa in uu yaraado. soo marka waxaa fiican in aad sariirta ku nagaatid 10 daqiiqo ilaa 15 daqiiqo si jaaniska oo maxaa la yiraahdaa uur aad ku qaadi kartid ugu bataa. lambarka afraad oo muhiimna waxay noqon doontaa isku sameeya check-up adiga iyo xaajigaaga. haddii intaas aan soo sheegna aan waxba idinka tiri waayaan, waa inaad israacdaan adiga xaajigaaga, aad tagtaan fertility centerska xarumaha la yiraahdo. waa inaad isbaartiin labadiina adiga iyo xaajigaaga. haddii midkin cilad uu ka jiro waa in la xaliyaa. okay, wax kasto waa la xalin karaa. soo haddii cilad dhankaaga ay tahay waa in la xaliyaa, haddii dhankiisa uu yahay waa in la xaliyaa, kadibna maxaa la yiraahdaa waxaa laga yaabaa in ay ka imaadaan meesha. qodobka ugu muhiimsan aan kula dardaarmayo ama idinku sheegayo waxay tahay waa inaad ku xidhnaatiin Allah subhanahu wa ta'ala markasto ducadan badsada. maxaa la yiraahdaa because waxa dhan asaa bixiyo. okay, awlaadi yaa bixiyo Allah. soo ducada badan waxyaabo badan waxay kaa caawinayaan inaad awlaad badan heshid. haddaba marka haddii aad su'aal qabtid ama maxaa la yiraahdaa comments aad qabtiin xagga hoose noogu dhaafa. group telegram aan sameynay, soo groupkaas marka wixii su'aale ay wixii comment ah xaggaas hadaan u weydiisiin
maxaa la yiraahdaa in kaga jawaabi doonaa xagga hoose aan soo dhigeynaa soo dhawaada mar kale. Thank you so much.